inta marka waxaan u gudbaynaa marka powder mildew. powder mildew waa cudurradii aan ka hadlaynay oo geedkan ku dhacayay ama geedkan oo hostiga u ah. symptomskiisa ayaan ka hadlaynaa, causeskiisa ayaan ka hadlaynaa, managementigii ayaan ka hadlaynaa. powder mildew symptoms maxaa la yahay? powder mildew waa white patch which appears initially on the lower leaves. wuxuu ka soo muuqdaa lagu dhahay waa barabara cad oo ka soo muuqda lower leaves ka caleemihii hoose. caleemaha hoose oo geedkan markuu soo baxa salka agtiisa caleemaha ku yaala, caleemahaas oo marka ka soo muuqda. marka wuxuu ku baahi karaa marka abaf kor u baahi karaa haddaad marka aad ka garaynin oo caleemahaas marka hore ka soo muuqda inta kale kuwa kalena aad ka buufinin waxa waa kor u soo baahi karaa lagu dhahay. ground parts ku ka yimaada ka bacdina kor u soo baahaya, plants oo kor u soo raacaya. white parts turns to gray, ka bacdina waxay isu bedelaan gray inay noqdaan ama midabka grayga ay sameeyaan oo ka bacdina black ay isu bedelaan. fungal fruitineska badiska are visible, way muuqdaan, waa wax muuqda. severely infected leaves may turn yellow, ay isu bedelaan and dry up, deedna way qalanayaan, deedna way dhacayaan ama falling down bay sameynayaan. waa kana asoo geedkii hoos qaybihiisa hoose ka muuqda, marka deedna asoo u soo gudbay qaybtiisa sare. because hadda waxaad meeshaan ka muuqdaa flowerkiisa meeshaan uga jeedaa caleentii flowerka ku dhexagtay ayuu ka muuqdaa, deed waa soo gudbay already marka hadda wax ka qabasho ma lahan. waaye inaad u adkaysato waaye wixii uu kugu sabab. causes maxaa ka sabab? condition which favorable development of disease, xilli uu cudurkan ku baahi karo inaad heshid, inaad wax abuuratay. those that favorable for plant, waxaa laga yaabaa marka inaad geedkan xilligu favorable u ahay oo aad beer lahayd inuu cudurkan uu ku soo aado xilli uu favorable u yahay, dad marka inaad la dagaasho waa ku qasbantaa. disease emerges wuxuu soo baxaa lagu dhahay in favorite by the period of high humidity, xilligaas uu favorite yahay, where the leaves remain dry, xilligaas oo dee caleemaha uu ka dhigayo kuwa dry. sida loo management gareeyaa? adequate spacing aad siinaysaa ama space ku filan aad siinaysaa between the plants. promote good waxa la circulation ardada foliage waxa lagu dhahay uu dee ku sameey karo geedkan uu ku sameey karo wareegiisa. planting sunflower is an area that receives full sun, waxaad ku abuuraysaa meel uu ka helayo full sun ama qoraxdii uu si fiican uga helayo. for the most dry, xilliga asagoo meeshaasuna ay tahay cimiladeedu mid inta badan dry ah. remove and destroy the sunflower crop debris, wixii hore meesha u yeelay after the harvesting, meesha ka baabiya lagu because uu kaydsami karaa. application to appreciate foliar fungicide, caleemahaad waxaad ka siinaysaa fungicide ama waa ku buufinaysaa and can help you control the disease, waxay ka caawinaysaa inaad dee control socodkii. but care should be taken oo lagu dhaha as same in levels ayuu qaadan karaa. do not allow seed for the treated plants to use it for food feeds, ha u isticmaalna lagu dhaha marka waxyaabahan aad ku samaysay ilaa ay suntaanu ka baxdo ama periodkii suntaanu ku jirtay ay ka baxayso ha isticmaalna lagu dhaha. waxaa lagala talinayaa inaad isticmaashid. waa qaybtii toddobaad dee cashirkeena intaas ayaan ku ekeynaynaa qaybtan. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ku xirnaa beeraha TV si aad uga bogato barashada cilmiga beeraha.